Access denied. Access denied. Access granted. Access granted. Access granted. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. inaad iska dhigta hacker waxay noo suurta gelinaya website ayaa noo suurta gelinaya laakiin waxaad ogaataa marka hore ma ahan waxani wax real ah, just for fun, waa fiction oo wax la sameeyay. That's why ma aha, waa iska entertainment. marka si aad u samayso waxan oo kale waxaad u baahan tahay inaad gasho Chrome-kaaga gal, waxaad ku qortaa website-kan ayaa noo suurta gelinaya inaan iska dhigno qof hacker oo kale ah, not real, kaliya waa iska dhigid ama sida ay u shaqeeyaan oo kale. marka website-ku ku soo baxo noocan ay kugu soo baxaya runtii halkan waxa ku yaala templates aad dooranaysa qaabka shaashada aad ku shaqeynaysaa way kaanayso kaasoo kale ayaan qaatay anu. markuu saasoo kale kugu soo baxo marka ugu horeysa waxaad taabanaysaa taabka keyboardka, macnaha halkan waxaad ka arkaysaa qaabka aad u isticmaalaysid webka, qaabka u isticmaalaysid baa ka arkaysaa. haddii aad taabato shift waxa ku soo bixi doona access granted, haddaad taabato enter access denied 1 ilaa iyo 0 gaana mid kastana waxay u taagan tahay shay ayay u taaban tahay, shaqo khaas ah ay qabanaysaa. macnaha waa sidaad u isticmaalaysay ayaad marka hore ka sii qishaysaa taab ayaa taabanaysaa, halkan ayaad ka sii qishaysaa. marka waad bilaabaysaa. marka hore waxaad ku dhufanaysaa calaamadda atomida si automatically ayuu u qorayaa qoraalka. markuu si automatic u qoro adu kaliya waxaad taabanaysaa xarfaha saabka uu ku tilmaamayo kale. for example imika waxaan taaban karaa enter access denied ayuu soo saaray, macnaha meeshii aan jabsanayo kale inay diiday. escape ayaad kaga noqonaysaa. in yar kadib waxaad taabanaysaa shift si access granted si aad u gasho meesha kale, macnaha waad gashay. waxaad taaban kartaa 1 ayaa taaban kartaa in daatada jabsanaysay oo ku dawlad gareynayo kale, waa iska for fun. 2 ayaa taaban kartaa encrypting ayuu ku sameeyaa. waxaad taaban kartaa 4 ayaa taaban kartaa. waxaad taaban kartaa 5. tiro kasta waxay u taagan tahay shay ayay u taagan tahay. soo kale waxaad taaban kartaa afar geesiyada adoo isticmaalay computerkaada arrowska sare haddaad taabato floating facilitieskaas ayuu kuu soo saarayaa. ka hoose haddaad taabatana wuxuu kuu soo saarayaa wax sidii network oo kale isku xidhmaya ama kombiyuutarro badan oo isku xidhisid ama aad jabsanaysid oo kale. markaad saas ku xidho waxaad taaban kartaa home buttonka kombiyuutarkaaga, qaybta home buttonka wuxuu kuu soo saarayaa macnaha caalamkii oo dhan oo aad ku maamulaysid hal kombiyuutar aad isku wada xidhay. sidoo kale ay kuu soo saarayaan waa qaabka hackersku ay u shaqeeyaan, laakiin not real. waxaan waa just for fun, maaha wax dhaba, waa impressing inaad ku samayso qof oo kale. siro haddaad taabato security alert in lagugu qabtay hawshii ka baxso weeya, meesha ka baxso. markaad waxyaalahaas oo mid kasta wax ayay u taagan tahay aad samayso. mouse-kaaga haddii aad scroll up tiraahdo macnaha waxa dhaqsanaya qoraalka qaabka isu qoray baa dhaqsanaya. haddaad scroll down tiraahdo ayr ayuu soconaya. qaabkani marka waa qaabka uu shaqeynayo website-ku, waa kaliya just for fun. ugu dambeynta waxaad taabanaysaa end buttonka si uu kugu soo gabeeyo. good luck.